بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سو دواده وولاشين سهرايان iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa scholarship ama deeq waxbarasho oo bixinayo wadanka Singapore International Graduate Award baa la yiraahdaa deeqdan sanadka 2021ka ayaa la qaadanayaa academic year-ka waana fully funded iyaga waxa la wixii qarashada ay ku baxaya intuu programka socdo maxay toolay ka fakaraynaya waxaana ka wada shaqeynaya agency-ga lehdo Star jaamacadda lehdo Nanyang Technological University jaamacadda National University of Singapore iyo jaamacadda Singapore University of Technology and Design qofka loogu talagalay waa inuu dhamaystay shahaadada digriga koowaad ee jaamacadda haddii uu masterta dhamaystayna waa okay shahaadada digriga koowaad baa muhiima wuxuu ku baxayaa programku English institutionska aan sheegnay ayaa fulinaya qofka 4 sano marka uu dhigto waxa uu qaadanayaa shahaadada PhD da la yiraahdo research areas-ka ama meelaha qofku uu dhiganayo waxa weeye laba qaybood waa biomedical science iyo physical science and engineering guud ahaan science-ka iyo engineering-ka marka waxaad ugu yeeri doontaa qof kasta oo science dhamaystay gaar ahaan caafimaadka iyo qaybaha kale science-ka iyo engineering-ka digriga koowaad haysta doonayana inuu hore u sii wato waxbarashadiisa waxa laga rabaa qofka meeshu doono adduunka ka soo baxo international students oo dhan bay fursad u furan tahay laakiin waa inuu haystaa natiijo fiican digrigiisa koowaad ama digrigiisa u dambeeyay qofkaas waa inuu u hayaa passion ama doonis fara badan sidoo programka u dhamaysan lahaa una research-ka ugu takhasusi lahaa English waa inuu ku fiican yahay qoraalka iyo hadalkaba waa inuu haystaa recommendations fiican oo ka hadlaya aqoontiisa iyo shakhsiyadiisa inuu qof ka soo bixi kara barnaamijkaas barnaamijkanu guud ahaan waa free waxbarashadu waa free qofka waxa laga bixinayaa cuntadiisa goobta uu seexanayo transportation-ka gudaha stationery-ga waxyaabaha toilet-ka uga baahan yahay dhammaan waxa ku baxaya qarashaad intuu programka wado waliba iyo guna yar oo la siinayo intaas ayaa ka fargaraynaya waxaa loogu talagalay qofka soo codsanaya inuu documenti sax ah oo xogta ay xambaarsan tahay sax tahay inuu wato passport-kiinu soo gudbiyo sawir passport uu soo gudbiyo transcript-giisii u dambeysay waxbarashada reports recommendations meelaha wax ka soo bartay qofkaas waxa optional aan lagu khasbayn laakiin fiican inuu sito mid kamid ah imtixaanada caalamiga ah ee Ingiriisiga sida IELTS-ka waxaad aad u hubisaa inaad si sax ah u buuxiso shuruudaha markaad codsanayso barnaamijkan wax hard copy qofka looma baahna dhammaan online ku soo gudbinaya linkiga uu ka codsan doonana xagga hoose ayaan ku soo reebi doonaa ama description-ka muuqaalka ayaan soo raacin doonaa deadline-ku waxa weeyaan 1 December ayuu xirmayaa sanadkan 2020 kadib waxaa lala soo xiriiri doonaa dadka shortlisted-ka ee la soo xulo muuqaalka dadka heshay like saar haddaad wax tala aan haysid comment inoogu reeb subscribe saar wayna dhiirigelinaysaa adigana waxaa laga yaabaa inaad wax laga faa'iido gambaleelka furo si aad noola socoto sii share gare oo gaarsii ardayda kale ee Soomaalida meeshay doonaan baa ku sugnaadaan aad baad u mahadsan